أنا واحد لها رياق كسو دواء برنامج كان الله شعوصب ما أنت وحكي لنا أريمه وآدي آد وفي عن وإنك سوحي ساسان halkan waxa ila joogta raxmo ku soo dhawaad raxmo waad mahadsantahay raxmo hadda su'aal baan ku hayaa oo daawayaasha ma soo weydiiyeen kitaabka quduuska maxay u faa'iideynaysaa dadka masiixiyad kitaabka quduuska waxay u faa'iideynaysaa waxyaalo badan waxay tusaysaa runtana waxay ka dhigaysaa free intee saan ku qoran tahay waxaad rumaysan tahay runtana free ayay ka dhigaysaa marka aad ogdahay waxaad rumaysan tahay rumaysadkaas waxa adiga marka aad ogdahay waxa rumaysan tahay markaas anaga dhaxdeena waa is adkeenayna koska marka anaga wax rumaysano ognahay waxa rumaysanahay anagana waa adkaanayna marka adkaanana dadka anaga noo imaanayo oo yani waxna warsanayo waxaan leenahay adkeen iska marka ugu jawaabno ama aan iskaga celino ama aan isku furano waxay anaga nagu soo wadaan waxaan noo cadeynaya waxa waaye waxa noo cadeynaya oo noo sheegay kitaabka quduuska ah waxa noo faa'iideynayaan runta badbaadada ay keenaysa markaan ognahay inaan rumaysanahay iyo waxaan rumaysanahay aan dhahnay markii hore saas aan dhahnay marka anaga dhaxdeena ayaa is adkeynayno oo waxaan helaynaa adkeen oo dhaxdeena adkeena sida anaga kuwa anaga anaga waxna warsanaya ama inay nasoo weeraraan rabaan ama dadka inay ka cabsiyaan rabaan marka waxaan haysanaa waxaan iskaga celina dhaxdeena أو كواد أتكان وحنا عدينا كتاب كقدوسك تيتوس كو سجال وحليه إسقو حجينا هذا الكإله أنا وحجينا هذا الكإله ما حجينا وحن حجينا هذا الكإله وحن براني والرميستك هذا أقدر وح رميسنته أدي وح أقدر أنا رميسنته رميستك أقدر هاي أدي الرميستي الرميست واحد رميستك وحوي وح أدي الرميستي واي in waxa aan rumaysanahay markaas dhaxdeen ani waa rumayst adi waa rumayst in dhaxdeen adkaano rumaysadkeena aan ognahay anaga waxa rumaysanayn aan ogeyn waxba kama hadli karno waa rumayst wixii ma ogi laakiin intee saaska akhrisay hadda wax akhrinaysi waa intee ka akhrisay kitaabka quduuska oo meesha ahayd waxay ahayd Titus 9 noo sheegay laakiin wax yar aan rabaa inaan u sharxo way ani waan rumaystay waxaan rumaysnay ma ogi dhibaatada meesha taala dadka inay fahmaan way laakiin da ogdahay rumaysadka rumaysatay waxaad rumaysantahay da ogdahay markaas adigu waxa tahay qof adag oo adiga qofka kale rumaysadka leenaad ogyahay wuxuu rumaystay idinka iskaashataan idinka waxa tiin dad adag markaas wixii idinka niimaada oo iska celin kartaan oo u jawaab waxa ku hadashada leedahay sababtoo ah waxaad rumaysantahay waa ogdahay laakiin waxa ugu daran marka qofka uu rumaysad la yimaado oo san ogeyn rumaysadkiisa oo san aqrinin bibalka markaas arin kale noqonaysa laakiin anaga waxa waaye waa ognahay waxa rumaysanahay hadda ani rumaysadkii aan rumays la yimid aan ogahay rumaysadkeyga marka waan ogahay qofka iga hor yimaada inuu wuxuu ila yimaado in aniga iska difaaci karo waayo waxaan rumaysanahay ogahay laakiin marka qofka uu ogeyn wuxuu rumaysan yahay marka dhibaato ka iimaanaysa marka waxaad ka wadaa dadka oo masiixiinta oo rumaysada waxa u fiican intay bartaan waxay rumaysan yihiin adiga leh dadka miska celin karaan adiga dadka iska celin karaan way qof rabbigu iimaanayo uu rumaysta okay wax fiican waay uu badbaadi nimcada Ilaahay u helay laakiin ma ogday waxa rumaysan tahay hadda aadan ogeyn waxa rumaysan tahay maxaa hadii lagu hor yimaado oo lagu warsado warwaasaasaa tahay lagu dhahay wixii aadan fahmaynin dhibaato iimaanaysa laakiin marka adiga waxa rumaysatay aad ogdahay aad akhrisay aad baratay rumaysada la timid waan ogdahay waxa rumaysatay markaas qofka ka hor yimaado oo adigu soo weerara ama wax uu rabo kula yimaado ama hadallo kula yimaado waa iska celin kartaa taasna anaga iskama soo alifanin waxaan noo cadeynaya kitaabka quduuska ah saanu leeyahay isagoo xajinaya adigoo xajinaya hadalka aaminka ah hadalka Ilaahay ku dhiib aaminka ah abaratay halna ka qaadin halna ku dareen ya aragayada hadalka dhiguri waxa lagu yiri isagoo xajinaya hadalka aaminka ah sidii loo baray anaga inaan bibalka kitaabka quduuska sida u baranay waa inaan u hadalnaa waan u xajinaa waa hadalka naloo dhibtay waa inaan xajinaa waa inaan lahaana ammaankiisa iyo barashadiisa inaan waxna ka dhinno waxna ku darno ma waa inaan xajinaa lagu yiri isagoo xajinaya hadalka aaminka ah
oo ah sidii loo baray sidii naloo baray u qaadanay oo kitaabka qaduuska u akhrinay inaan xajino waaye sidii naloo baray inuu awoodo maxaa waaye maxaa laga wadaa hadalka ilaahay awood buu leeyahay inuu awoodo inuu cilmiga runta ah ku waaniyo oo ku canaanto kuwa muran miidhan ah maxaan ku waaninaynaa waa inaan dadka ku waaninaynaa sida naloo baray oo xaqiiqda ah u sheegno laakiin kuwii nolo yimaado qashqashaad iyo in anaga inay dhulkana dhigi karaan ama yacni inay anaga rumaysadkeena ay soo ridi karaan ama anaga inay jijleec naga arkaan maha waayo anaga waa rumaysanay waxbaan la nimid rumaysi waa aaminay waa rumaysanay laakiin maxaan rumaysanay waay adi mana waxaa raxmo wax oo example oo marsaanku ku dhacdo adi qof u jiibaatay ها وحلو قفا كسر ورنا قلت ورقف يوم وعلتي وحي سحد أركيسي أو أنت سو دن آيات كتكذي وح محا سحد محاكو سو حقيقي سوى أوكي ور محاكو جي وحان دت كان يوروب تاني وحان دت كعدان كان دت كان وحان وحي أمسي ما أها وهي دت أنا كلر كينا دت اسكو أفريقيا هاي دت اسكو ميل اسكو إجن هاي أي نقول مسيحين أنا قدام بين آدم أنا هاي dadka kalarada waa qurux ilaahay oo noo kala radeeyay ma aha dadka cadaanka ah waa gaala ama waxaas waa maskaxda la iska dhaqaya laakiin marka adi ogdahay waayo Afrika dhan ma aha dad oo wada muslim ah dad masiixiin ku jiro Yurub oo dhan dad waa iska masiixiin dhinaca kale carabta dhinac kasta muslim iyo masiixi ku jiraan laakiin waxa laga dhigaa dadka madoob inay muslimkan yani muslim leeyihiin boqolkiiba waa muslim adiga agreementkaas inta ka keentay marka aniga muslimka ah agreement baan ku qoray warqad baan ku qoray maya wa aamina la imid sama haddana waan arkay wax aan si aaminaba barka aan rumaysto oo xaqiiqdii ay timid marka hadii xaqiiqda aan ay timid aan rumaystay waxaan rumaystan ogahay rumaysi waa rumaysatay laakiin waa in ogaataa maxaa rumaysantahay laakiin mar ma dhacde oo ada oo hadalka ilaah ku jibaabtay oo qof iska celis waxaan ku dhahay inaan rumaysto waaye ilaahay jecelkiisa qofku noo soo diray Yohana 3:16 aan u akhriyaa jecel intaas ka weyn oo ilaahay oo isku muuji karo oo ku cadeyn karo mala balan ka la mid aan ma jiraba marka jecelkaas aan xukuma aan xukun iyo cadaadis iyo cadaab ya adigoo walaalkay ama adigoo oo daris aad daarto in aan xariga ugu xiratid ya aniga qiyaasteyda iyo go'aankayga aad soo dhigdid ma naqanayso marka tan hadda waxa lagu leeyahay oo rabbiga noo cadeynaya waxa lagu leeyahay isagoo xajinaya adigoo xajinaya hadalka aaminka ah adiga naftiga waa inay xajisa hadalka aaminka ah sidii loo baray sida anaga u baranay kitaabka qaduuska waa inay xajinaa inuu awood inuu cilmigan awood u leeyahay sababta marka adiga wax taqaanid haddaan ku dhaho koobkan koob waa tiraada ma aha koob se ku aamina koobka inuu koob yahay anigu arkoya indhaa leeyahay ya waa arkay waa aamin inuu koob yahay waa aamin kan koob waay waa aaminaba hadday tiraada koob ma waa arkay waa fiiri si fiican oo fiiri ha waa aaminay koob waay waa arkoya وآمنة إنه كوب يهي وأنا رميستي صابت ورميست كان كوب واي واسكوجا هاي قلت روح عن كوب معها وحكى له أو إجوا معها سفعنا أفيري أوكي أقول أنا كان وأوجا إنه كوب يهي وأنا رميستي وأنا أركويا أم وحن ميس أنا أركايا دايت الإنسان إنسان ما وحال سوكل وحال ده بس كهذا ولا سكت خايا مرك ربي وحنوسي هذا الكيس وحنا ليه أديكوا حجينايا هذا الكآمن كأه oo sidii loo baray sida u baratay kelmadna ku dareen aad ka dhimeenin sidii loo baray u baratay kelmadna ku dareen kelmadda in awood u lahayn in anaga awood leena iskaga cilmi qofka oo anaga inuu warrabo inuu soo abaaro oo waxaan baranay soo fargashta inuu awoodo inuu cilmigi runta ah ku waaniyo qofka hadduu ku xumeeyo qofka oo adiyo isooseysinayo oo cabsanayo qofka la hadal ما دهيس معنا ناس دجال ماشي مجرو هذا يسوسيناي وبقى عبسي إلهي كوجرته وإن الله هذا الشيء مع الولاية إنه أبوده إنه أبوده إنه علمي رنت كواني قفك وشجواني كوعنانو كوا مرنكا ميدان يا واي kuwa ku imaanay muran waa ku daalnay wala kan way wareebelo kana bari la yiri horta la mid saan noqdo kana yiri balaya ka dhacday kan muran way adeeg muran ku gureernay marka waxa iska canaana la yiri waa ina iska canaanata ado isoo siinay oo cabsanay ama dad jir oo
waxaan u maleeyaa sidaa u maqlay dadaa jira oo rabaan intay kitaabka quduuska wax qalad ka sheegaan ama bedbedelaan hadalka laakiin marka adiga baratay si fiican markaas waa fahmaysaa marka adiga wixii waad aamintay magsoontahay waa baratay waa rumaysatay laakiin waxa aad rumaysatay ma ogdahay adoo geedkan waa rumaysatay laakiin geedkan hadda saa u fiirsaa rumaysatay okay geed waa kan intuu yaalaa laakiin geedkan mirihii ka baxay ma la socotaa mirahan ku yaalo ma ogdahay geedku inaad si fiican u fiirsid aad baratid way waxaa rumaysatay inaad ogaatid way geed le waa haddaad tirahay geedkan suu ahay inta ma kala ogid bixi laakiin adiga waa rumaysatay kitaabka quduuska rumaysatay laakiin ma aadan furin mana aadan akhrinin marka aadan furin oodan akhrin waa wax rumaysadkaaga waxba kama ogidba laakiin haddaad rumaysatid rumaysadkaada ogdahay waxaa rumaysan tahay marka saasoo kale haddii lagu yimaado waana waaninaysaa adoo ishooseysiinayo iyo adigoo cabsi kugu jirto waayo adiga bini aadanka ma cabsoonaysa laakiin waxaa ka cabsoonaysaa samada kan fadhiga kan xaqa ku caabuday kan xaqa kugu badbaadiyey kan aragtay inuu yahay badbaadahaaga xaqa ah iyo runtan aa ku baratay waayo cabsi ilaahay wuxuu yidhi waxa caqli leh kan iga baqa ishooseysiinta qofka bini aadanka inuu ishooseysiiyo waa u fiican tahay qofka kibra meel maba gaaraya adiga ishooseysiinaya oo cabsanaya aa u sheeg walaalow si adiga u aragtid ma aha aragtidaada adiga aday ku qusaysaa laakiin tayda adiga kuma qusayso marka waa ina canaanataa waxaad sheegaysid ani ima quseeyo laakiin ogow ilaahay baa ku jecel yahay adiga ilaahay waa ku jecel yahay maalin baa ogaan doonta waayo adiga waxaa lagu soo diray adiga dhan waxaa tahay fartiinaaba tahay kitaabkaba quduuska waxaa dardaaranka ugu dambeeyey oo lagu dardaarmay waxaa waaye adiga waxaa tahay qof oo la diray meeshaad joogta ka bilow ilaa cirifka ugu dambeeyo waxa adi maqashay aad aragtay sheega lagu dhahay masoon tahay waani markaa waanisid iska canaana hadduu xadkiisa gudbo waa canaananaysaa waayo maxaa u canaanaya aaminkaaga ogdahay waa rumaysatay rumaysadkaagana waa ogdahay waxaa haysataa wax oo adiga iskaga canaanatid maxaa waaye sidee maxaa la dhahay ko waayo adiga muran qofka rabo maaragtay muran lalama murmo dadka waqti dhammaysaa la dhahaa marka ilaahayna mama jecelo hadalka bilaa macnaha ah laakiin sidee u canaanaysaa waxaa u canaanaysaa yacni shaqsigaa isku mid maaha ra'yiga adii haysatid iyo ra'yiga isku mid maaha taadi aday ku xukuntaa laakiin ra'yigayga iyo xuriyadayda iyo aniga xaqayga jastiga ilaahay i siiyey rumaysadkayga ana og waa rumaystay waxaan rumaystayna waaba ogahayba wax adiga ii saadinaysa mii sheegi kartaa marka adigan wax kuusha waa waaninaysaa marka adiga waa wacdinaysaa wax adiga ii sheegaysa qalad waaye anaa wax fiican ku waaye ya akhbaar wanaagsanaa ku waaya oo caafimaadkaaga noloshaada badbaadadaada badbaadahaaga dhammaan waa maogido adiga waxba ma ogide haddaa u baahan tahay waqti isii anaa wax kuu sheegaya waa waaninaysaa waan iska canaanaysaa waxaa leedahay tan taada ma aha shaqsigayga ma soo geli kartid ra'yigaygana ma bedeli kartid waayo taada waa taada tayda waa tayda aan isku ogolaano in anaga madax furo in anaga kala ra'yi duwana marka saasaa iskaga canaanaysaa marka aayaddaana waa aayadda noo caddaysay idinkoo xajinaya adigoo xajinaya sidaa lagu yiri bal si fiican u fiirsada ama u dhagaysta hadalkan adigoo xajinaya maxaa xajinaya hadalka ilaahay aaminka ah oo sidii loo baray sidii anaga naloo baray kitaabka quduuska hadda raxma intan aan ku joojinayna waan kusoo laaban doonaa ani waxaa la dhahaa riyaaq barnaamijka waxaa la dhahaa nolosha cusub waan kusoo laaban doonaa hadda waxaan ku harnay raxma waxay noo sheegaysay noo faa'iideynaysay kitaabka quduuska siduu u faa'iideynayaa dadka masiixiga waan kusoo laaban doonaa hadda waxaan rabaa intaan noo sheegtay waxbarashada kitaabka quduuska maxay muhiim u tahay waaba waxay ku jiraan mara hoosteeda maanta waa ay bermi sidee aday dadka markay ku dhin jireen sidee in cabsida ka hortagdaa sidoo buu rumaysan karaa markaas intaa ku weydiiyo dhibaatayaasha noo sheeg ayaga markay yaraan ma fahmin laakiin markay weynaada way fahmin nolosha ruux dadka ku jirta ruuxa ku socodsidiisa iyo jirka ku socodsidiisa maba kala saaran ilaahay jaceylkiisa siduu noo bedelaayay aniga saas ku bedelayaan masiixi mata may ha waxa loo haystaaba jirinba markuu oo dhinto ama ciise masiix imaado saaxiibkay masiixi
حل واسل عبين مع هذه السنة كان sidee ku arkayeen haddana markay ku barteen sidee maxay ku dhaheen ani waxaa la yidhahaa riyaaq kusoo dhawaada barnaamijka nolosha cusub halkan waxaa ila joogta raxmo hadda waxaan ka wadaynaa meeshaan ku harnay raxmo kusoo dhawaada waad mahadsantahay raxmo su'aal baan kuu hayaa oo markii qofka masiix noqdo siduu rumaysadka ugu koraa waa wax muhiim ah aan waqtiga xaadirka ah la joogo loo baahan yahay waayo ma aha waxaan la imid rumaysi waan seexday ama hooshaydan wata ama sidaan hore u dhaqmi jiraan u dhaqmayaa ma aha waa kala duwan tahay tii hore itan cusub waa kala duwan tahay waayo qofka markuu rumays la yimaado wixii hore tuura lagu yiri qof cusub baa noqotay adiga dhan baa qof cusub baa noqotay marka iimaanka aan la timaad aamintid rabbi ciise adiga kii hore mabatid qof cusub baa noqotay taasna waxay kuu sheegaysaa in aad raacdid rumaysadkaaga maxaa hore u sheegnay kii waa rumaysatay waa inaad barataa waxaa rumaysataa ladahay haddana maxaa barashaa qofka markuu rumaysto rumaysadka oo ku koraaya keliya waa 5 marka koowaad waa in la baabdisaa oo af Soomaaliga waxaa la dhahaa waqlal ama biyaha inuu galaa markuu biyahaas galo wuxuu noqonayaa qof cusub wixii hore waa baxay wuxuu noqonayaa qof hadda cusub oo dhashay masiixi ah waa waxa kaliya loo baahan yahay waa muhiim tan labaad waa inuu bartaa hadalka Ilaahay waa inuu raadsadaa macallimiinta meelaha wax laga dhageysto meelaha lagu shiro meelaha isku yimaadaan dadka masiixiinta walaalaha masiixiinta waa inuu tagaa uu bartaa hadalka Ilaah waxaad ka wadaa miyaa intuu oo kaniisad intuu aado waa inuu kaniisadda tan ugu dhow ama meeshu asaga uu xiriir leeyahay heli karo waa inuu raadiyaa waayo meel wax la weynaa ma jiro meel kasta hadduu aata joogin aata meel kaniisad leh wuxuu helayaa meel uu ka galo YouTube-ka raadiyaala jiro la dhageysto waxyaalo la isku qoraa jiro ilaa mabaadiyaha lama deegaanka uu joogo oo inuu helayo shaki kuma jirto taas waa inuu xiriir la yeeshtaa walaalo masiixiin ah waa inuu helaa meel uu ku koro oo ku maqlo hadalka Ilaahay waa wax muhiim ah waa tan labaad waa inuu bartaa hadalka Ilaahay waayo hore waxaan soo sheegnay waa rumaysatay rumaysadkaaga waa inuu ogaataa waxa rumaysatay marka ogaatina rumaysatay maxay aan soo ogaanay kuma naqonaay laakiinse waa iska celin kartaa kuwa adiga ku soo weerara ama kuwa adiga oo hadal macna la'aan ku leeyahay marka tan saddexaad xiriir inuu la yeeshto waa inuu bartaa hadalka Ilaahay tan saddexaad waa inuu xiriir la yeeshto walaalaha masiixiinta oo ta afaraad jibinta inuu oo la jibiyo kibista oo markuu qofka belief noqdo waxa way koobka la qaadanaya la cabaya oo waxa way xasuus waaye waxa way wax oo kibistaas la cunaya waa kibisti la jibinaya maxaa laga wadaa koob oo koobka waxa way xasuusta rabbiga wuxuu dhakan waa jirkeyga kana waa maaliyadan waxa markii isku talaabta loo waday kana waa koobkii maaliyada waxa way la cabay isku talaabta markii loo waday waxa ba jirkiisa nolol dhaawacay dhiig oo noo bixiyay marka saal adigeed waa xasuus waa inay jabsadaan jibiska walaaltinimada xiriirka rabbi ciise intaas isku keenaysa taas waxaad ka wadaa miyaa taas waa lagu soo xasuusanayaa isku talaabta waxa taas waxa lagu soo xasuusanayaa markuu u socday saliibka rabbi waa saliibka naftigiisa maalintaas uu sheegay maalintaas ayagoo cashada u fadhiyaan oo dhaakan waa xasuustii ugu dambeysay marka iyo inay tukashada inay wada tukadaan inuu barto inuu tukado inuu amaano inuu oo hadduu qofka ugu dhow inuu raadsado laba iyo rabbiga wuxuu leeyahay meesha 2 iyo 3 iskugu timaadaan inka badan waa isku mid inay ku tukadaan magaca rabbi ciise masiix waa muhiim waana wax markasta waa loo baahan yahay intaas waa inta qofka masiixiga noqdo oo ku kori karo oo ku xoogeysanayo oo qof bini aadan oo yaani dabal yaro timidna ma ridi karo waayo wuxuu asaga ku hadlu leeyahay way salaadiisu haystaa walaalo masiixi oo garab istaagaya waxbay isbarayaan mid kale uu adkeynaya mid kale ayuu wax u sii sheegay mid kale ayuu u duceynaya mid kale ayuu
yacni wixii loogu soo dhiibay ilaahay ugu dhiibay fariin oo sii gaarsiinaya marka waa muhiim inuu qofka uu aado baabdiiska oo wixii hore dhan meesha ku baxaan wuxuu noqonayaa qof cusub markaasna waxa waaye waa inuu helaa meel wax ku barto aniga masiixiyaa noqday shaqadayda aaday shalay waxaa rumaystay shaqadan aaday waan iska seexday cuntadaan karsaday hadalka cunto keliya laguma noolaada hadalka ilaahay waa nolosha keliya marna waxaa laga dhintaa qofka biniaadanka 3 mar haddaa ka dhimatid waa cuntadaadi waa hadalka ilaahay haddaa adiga ilaahay kala dheeraa xiriirkiiba maba laha muqsanta maxaa adiga xiriirkaaga waana xiriirka ilaahay ayuu kugu dhaweynaya tukashadaada iyo dadka walaalaha masiixiin ku dhex jirkooda iyo kaniisadda aad maalin kasta waa inaad heesaa waa sida adiga cuntada ugu baahan tahay cuntada waa u baahan tahay maxaa u baahan markaas waxaa ka wadaa nafta u baahan hadalka waxa waaye waxa uu ku siinayaa geesinimo waa ku koraysaa aaminkaaga koray haleluya shalay maba dhammaanaya kun habeen iyo kun maalin haddii aan sheegno aan qorno wax dhammaanaya ma aha waa usii gaajaysanaysaa waxaa samaynaysaa ilaahay baa ammaanaysaa waa u gaajaysanaysaa ammaanta ilaahay adigna meelaad joogta maba ogidba nafsadaadaba waxaa aadaysaa koray aadaysaa marka waa loo baahan yahay taasna waxaa noo cadaynayso beebalka markaasaa kuwii hadalkiisii aqbalay la baabdiisay markay dadkii xirtii ay wacdiyeen oo rabbiga u wacdiyey hadalka rabbiga markuu wacdiyey hadalkii oo lagu wacdiyey dadka hadalkiisii aqbalay la baabdiisay waayo markay dadkii wax wacdiyeen marka anaga jidka istaagnaata anagaa tamamar waa bixina jidka istaagina wax yar waqti miyay haysaa waqtiga ku haya kii ku dhawo waa degdegsana gaadbaleysiyo waa u duceynaysaa dhib malaha qofka biniaadanka waa degdegi karaa xoogna ma aha kii ku istaago mid ilaahay qalbigiisa iskuu soo qaboojiyey oo istaagay markuu istaago maanta wax u fiican aan ku hayaa ilaahay waa ku jecelyahay maogdaa ilaahay kiisa kuu soo diray hadalkiisa badbaadadiisa curadka ilaahay jesus adigu ku yimid badbaadadaada dunidaana u yimid madax furasho u yimid waa ilaahay nala jiro emmanuel adigoo ku jecelyahay waa u sheegaysaa marka dadkii markii wax loo sheegaa lagu dhahay waxaa waa aayaddan waxaan kuu sheegay sidee dadkan lagu baabdiisay loo sheegay dadka layskama baabdiisaayo ma aadayaane maxay lagu baabdiisay warka wanaagsanay heleen akhbaarka wanaagsan markuu qofka helo oo rumays la yimaado waa lagu leeyahay ariga markaasaa kuwii hadalkiisa hadalkii aqbaleen warkii wanaagsanay akhbaarkii wanaagsanay aqbaleen la baabdiisay oo waxaa maalintaas lagu daray ayagoo abaarihii 3,000 oo qof oo waxay ku sii adkaysteen rasuuladii waxay bari jireen iyo rasuuladii bari jireen iyo rasuuladii waxay bari jireen iyo xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo kibista maxaa waay waan soo sheegnay tii kasoo markay la baabdiisay waa la baabdiisa loo dhahay oo markii la baabdiisay oo waxay ku sii adkaysteen maxay ku adkaysteen inay rasuuladii waxay bari jireen way adkaysteen inay wax baraan dadka ay koriyaan ila iskama koraa cunuga marka aad cunto siisid koraa hooyo naaska u dhigaysaa cuntaa siinaysaa waa dhaqaysaa qofka markuu beliefka la yimaado maxaa ka wadaa saas ma kala yihiin saas waaye marka adiga cunugaaga aad tiratid aad dhaqdid aad cuntada siisid qofka markuu dhashto mar labaad dhashto oo beliefka la yimaado oo aaminka la yimaado wuxuu u baahan yahay in la dhaqdhaqo maxaa waa dhaqitaanka in casharka la siiyo in la waaniyo oo in wax kasta loo sameeyo waayo waxaa layidhi waxay ku adkaysteen inay wax baraan way ku adkaysteen inay wax baraan rasuuladii way bari jireen iyo xiriir ka dhexeeya inay xiriir lahaadaan waayo waa isku waxa hay maanta shirki waay maanta kan waay kaal imaada waxa ka wadaa miyaa barashada heleen ay ku adkaysteen way koreen way marka way adkaysteen marka cunuga cunto asiisa cunto dhabaad cunto cunug sariirta ku dhimanaya wuxuu noqonaa ciif noqonaa nafaqada ka dhamaanayso qofka beliefka ana hadduu hadalka ilaahay uu helin uusa dhadhaminin oo helin wiigii gurigiisa inuu ku akhristo waaye kaniisadda 2 mar 1 mar inuu tago waaye laakiin gurigiisa inuu ku akhristo meesha la ka doonto ma aha in guri la baxa ka soo qaado ma aha waa hadalka ilaahay waa nolol markuu weynaado markuu wax yar waa cunugu sii noqonaa markaasna cunugu noqonaa uu arag asaga kali markaas asaga cundidiisa raasanaysa ma laakiin qofka markuu markaas yimaado beliefka waa in dadka asaga wax baraayo rasuuladii dadka asaga wax baraayo oo wax u sheegay anagoo kale markaa dad wax u sheegno aan hadalka gaarsiino waxa waaye
waxaan isku dayaynaa inta anaga wax u sheegi karno waa bareynaa kabacdi markuu asaga wax uga adkaada socon leenaa keligiisaa soconaya keligiisaa tagaya inuu aado keligiis isdabero waa kaniisada aado lama qasbaayo qasab ma jiro waa u sheegtay qofna waa abuuraa qofna abuur yaruu sameeyaa qofna waa gooyaa korismada ilaahay iskale horta laakiin inta aad wax u sheegi kartid inaad samayso waaye marka waxay bari jireen oo waxay ku sii adkaysteen rasuuladii waxay bari jireen dadkii waxbay bari jireen iyo xidhiirka u dhaxeeya iyaga iyo kibista waxayna bareen in markasta laisku yimaado kibista la jabsado kibista jibinteeda iyo tukashada taasna anaga iskamaan soo alifin waxaa noo sheegaya kitaabka qaduuska falimaha rasuulada 2:41-42 waayo ma dhici karto in uu qofka oo belief noqdo oo aamin la yimaado oona iska baxdo maxaa ku dhahlayd Raxmo maxaa ku dhahlayd qof oo rumaysadka qaatay laakiin oo kaniisada marmar u aada la kaligiis ma aqrisado erayga ilaahay qofkaas oo kale qofkaas waxa waaye in uu dib iskugu noqdo waa inuu fikiraa asaga hataa dan uma aha waayo wuxuu ku jiraa cabsi wuxuu ku jiraa beri maxaa kuu soo socdo maxaa la warsanaa kan muxuu ku dhihi doonaa kana kuu soo socdo muxuu ku dhihi doonaa waryaa waxaan maqlay masiixiya naqatay intee ku dambeysay war ilaahay muxuu saa kugu galay wax dhintaaba tahay been waaye waa maskaxda laga dhaqayaa qofkaas jawaab ma hayo ma baranin sababta hore u soo sheegay qofkaas jawaab ma hayo markaas niyo yaa ku soo sheegay hor aniga san ma ogeyn be ayaa ku yiri waxaas inta ka maqashay way asaga isqarinaya way jirtaa mar way dhacdaa dad sidaas ah laakiin marka dambe dadna ilaahay marka dambe indhaha u furaay qalbiga way fahmayaan maalin kasta dhibaatada ma ku jiri doontaa maxaa waaye marka qofka uu ordaya intuu ordaa qofka warku dhibaataysan inuu u ordaa xagga ilaah oda maanta go'aankaasaan qaatay maalin kasta qof anoo kala ah inuu idhaho war sidaasaan maqlay maxaa talaa marka qofka waxaan ku waaninaya aan u sheegaya aan ku adkaynaya rumaysada ahay ha iska ahaanin rumaysad haddaadan adiga waxaa rumaysatay aadan ogeyn oo haddaa rumaysatna aadan lagu baabdiisin aadan walaalaha masiixiinta ah meel kasta ay joogto nooc kastaba ahaadeen aadan xiriir la lahayn aadan kaniisad lahayn kaniisadda way dhistaa waa dhisitaanka masiixiinta meesha iskugu yimaadaan laiskugu duceeyo mid kale ay ka helaan ku koraan oo dhibaatadaada walaalaha inaa u sheegid lagaaga duceynayo meesha ay ku koraan ay wax isku baraan waay Raxmo sida oo hadalka u fahmay qofka markuu aqriyo erayga ilaahay asa kaligiisa taa uu adkeyn karaa waa is adkeynaya marka adkaatid walaalaha kale adag yihiin waa is caawin kartiin wixii idinka niga hor yimaada wow saan baa dhaysaa yes I'm Christian aniga qof masiixi ah blessing ah aniga rabbiga ay dul taagan aniga waa duceysantahay waa magac fiican ah bidoosa iyo waxa dadka marka oo aqrisadaan ilaahay hadalkiisa markaas aytay hada dhibaato arkaan wax arkaan iyo keligooda is adkeyn karo oo dhax karo may ilaahay wali jiraa soo kale waa arkeen bay way is askeeyeen way rumaysteen way fahmeen qof wariyo ab ku qoslay haye ani mi aysan socotaa God bless you horta ko hay warka isi qof masiixi naqatay inta ka baxda yes ani qof masiixi waa cadaysanaysa masiixi oo rumaysnahay wiilka aabaha ruuxa qaduuska wax kale ma haysaade may welcome ku soo dhawow naxariista ilaahay waxyaalo badan oo ku haya waa ku jecel yahay ya kaal adiga bala hadli kartid inta qof wax ugu jeelaysa Raxmo arimo aad iyo aad u fiican ka hadalna saacadna hadda way dhaxiro inaga dhamaanaysa had inta waan ku joojino laakiin waa wadeena ku soo laaban doonaa daawayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku soo laaban doonaa barnaamijka la dhaho nolosha cusub ani waxa la dhahaa Riyaaq halkan waxa ila joogtay Raxmo emailkeena telefoonkeena waa kan aan la soo xiriira su'aalo noo soo dira waan ka jawaab doonaa waad mahadsantihiin